habaar qarniyo badan ka hor la habaaray ayay dalkooda hooyo ooga soo carareen, balse waddan kasta oo ay tagaan habaarkaasi wuxuu ahaa mid weli daba socdo. Saaxiibayaal, maanta waxaan idiin wadaa filimkan xiisaha badan. Ka hor inta aanan bilaabin, ha iloobin inaad muuqaalka like garayso, sidoo kalena channelka subscribe dhahato. Bilowga hore ee filimka waxaan aragnaa warar laga sii deynayo telefishinka oo ku saabsan dagaalkii Kuuriya ee 1950kii. Isla xilligaasina waxaana la tusaa haweeney uur leh oo ku jirta armaajo ciriiri ah, waxayna iska qarinaysaa nin koofi xiran oo u muuqda mid la yaab leh. Isla daqiiqadaasna ninka waxaa korkiisa kasoo dhacaysa haweeney isdishay oo kuulo kasoo daadanayaan. Intaas kadib filimku wuxuu iska jaraa iyadoo la joogo dalka Mareykanka, weliba taariikhdan casriga ah. Waxaana la baraa gabar Kuuriyaan ah taasoo lagu magacaabo Sofia. Sofia waxay ku sugnayd jaamacadeeda cusub si ay isku diiwaan geliso. Isla markiiba waxaa u imaanaya arday Kuuriyaan ah kuwaasoo usoo bandhigaya inay kusoo biirto community-ga ardayda Kuuriyaanka ah ee jaamacadan. Balse arrinka la yaab kale ayaa wuxuu ahaa inaysan Sofia waxba ka garanaynin afka iyo luuqadda Kuuriyaankaba. Sidaas darteedna ayadoo xisho dareemaysa ayay ka cudur daarataa arrinkaasi. Sofia waxay soo aadaa qaybta isdiiwaangelinta, balse ayadu waxay aad u xiiseynaysay barashada taariikhda Mareykanka. Waxaa loo sheegaa Sofia inay ka buuxsantay qaybtaasi, ayadoo niyad jabsan ayaana waxaa lagula talinayaa kalaas kale inay iska doorato. Sidaas ayana waxay ku doorataa taariikhda Kuuriya ee qarnigii 20aad. Sofia waxay wacdaa hooyadeeda ayadoona weydiinaysa sababta dalkeeda iyo dhaqankeedaba aanan loo barin. Hooyadeed ayaa arrinkaasi ka cudur daaranaysa, iyadoona gabadheeda u sheegaysa in ayada xitaa aanan la soo barin, sababtuna waa ayeeyadeeda oo arrinkaasi kasoo horjeeda. Isla markiiba Sofia waxay maqashaa ayeeyadeeda oo hooyadeeda ku qaylinayso, ayadoona ka xanaaqsan in mowduucaasi lasoo hadal qaado. Wicitaankaas kadib jawiga qolka Sofia wuxuu noqonayaa mid qasan, waxayna aragtaa biyo saqafka kore kasoo daadanayo. ayadana si ay usoo fiiriso markay dhinaca albaabka soo aado waxay arkaysaa albaabka oo lasoo garaacayo. Markay furtana albaabka cidna ma taagno. Xoogaa kadibna albaabka ayaa isfurayo, waxaana soo gelaysa haweeney lagu magacaabo Ari taasoo ah gabadha ay isku qolka yihiin. Subaxii xigay Sofia waxay soo xaadiraysaa fasalkeeda cusub, kaasoo ay dhiganayaan kaliya arday Kuuriyaan ah. Isbarasho kadib macalimadda ayaa waxay ku dhawaaqaysaa magacyada ardayda, balse arrinka la yaab kale waxay ahayd in dhammaan ardayda magacyadooda uu yahay kuwo Kuuriyaan ah, waxaana kaliya ka duwanay Sofia oo wadatay magac Amerikaan ah. Marka la gaaro fiidkii, ardaydii waxay soo aadaan banaanka si ay halkaasi jawi ugu qaataan. Intay sheekaysanayeen, Sofia waxay qirataa inaysan waxba ka aqoonin dhaqanka iyo afka Kuuriyaba, balse waxay sheegaysaa inuu jiro magac Kuuriyaan ah kaasoo ooga shakisan tahay inuu yahay magaceeda dhabta ah. Waxayna ka codsanaysaa inay u turjumaan magacaas, balse isla markiiba markii magacii lagu dhawaaqo, Maaso ayaa taleefankeeda ka kacayso. jawiga goobtuna wuxuu noqonayaa mid aad u qasan oo cabsi leh. Dhammaadka isbuuca, Sofia waxay soo booqataa guriga ayeeyadeeda, waxayna familka ooga sheekaysaa sida ay tahay jaamacadeeda cusub iyo dhacdooyinkii ay kusoo aragtay halkaasi. balse markii ay soo hadal qaado magacii Kuuriyaanka ahaa iyo wixii halkaasi ka dhacay, wejiga ayeeyadeeda ayaa isbedelay. ayeeyada oo aad u xanaaqsan ayaana meesha iskaga soo tagayso. intaas kadib Sofia aabaheeda ayaa wuxuu u sharaxayaa in ayeeyadeed aysan ogoleen in magacyada Kuuriyaanka ah lagu dhawaaqo. qof walba oo familka ka mid ahna wuxuu leeyahay magac Kuuriyaan ah, wuxuuna sheegaa in ayeeyadeed dhibaatooyin nafsi ah ay kasoo gaareen dagaaladii Kuuriya. intaas kadib Sofia waxay soo aadaysaa qolka ayeeyadeeda si ay arrinkaasi uga raali geliso. ayeeyadu raaligaleynta waa ay aqbashaa, waxayna u sheegtaa in sababta magacyada Kuuriyaanka ah ay u diiday ay tahay habaar qarniyo ka hor lagu habaaray qoyska, sidaas darteedna ay ayeeyada arrinkan u sameynayso si ay u badbaadiso familka. balse Sofia waxay muujisaa inaysan arrinkaasi rumaysan, taasoo ka xanaajisa ayeeyada. hal dhan galaasa ayayna daanka u saartaa. Sofia oo xanaaqsan ayaa waxay kasoo tagtaa guriga ayeeyadeeda, waxayna hore usoo martaa meel baar ah si ay madaxa halkaasi ugu degsato. waxay halkaasi isku bartaan nin lagu magacaabo June. sheeko dheer kadib si aad ah ayay iskugu soo dhawaanayaan labadooda, waxayna bilaabaan inay noloshooda iska wareystaan. habeenkaas June nambarka Sofia ayuu soo qoranayaa. maalmihii xigayna waxay ahaayeen kuwo wada kulmo, labadoodana markan waxay noqdeen lamaano toos ah oo uu jacayl ka dhexeeyo. intaas kadib Sofia waxay June usoo kaxaynaysaa guriga ayeeyadeeda si ay u barto familka. dhammaan qoyska intiisa kale waxay ahaayeen kuwo si diiran usoo dhaweeyo, inta aanan ka ahayn ayeeyada oo ku fiirinaysa indho ay ka buuxaan xiqdi iyo xaasidnimo. wax walbana waxay isbedelayaan markii hadiyadii uu June keenay la furo. hadiyadu waxay ahayd kuulo aad u qurux badan. isla markiina ayeeyada ayaa waxay bilowdaa inay qayliso, iyadoona ku qaylinaysa iyaga bax guriga, ma waxaad dib ugu soo laabatay si aad mar labaad u burburiso nolosha qoyskayga. markuu soo baxo June, Sofia ayaa ka raali gelinaysa wixii dhacay. maalintaas wixii ka dambeeyayna Sofia waxay aragtaa riyooyin argagax leh kuwaasoo kasoo kiciyo hurdada. markay Sofia isku dayday inay la xiriirto June, looma soo jawaabo. maalmo badanna lama uusan soo xiriirin Sofia. maalinkii xigay waxay baar usoo raacaysaa asxaabteeda si ay halkaasi magaxa ugu soo degsadaan. intii baashaalka lagu guyi jiray waxay taleefanka kuwan ku aragtaa sawir ayada iyo June, balse sawirka June waa la qariyay oo blur ayaa la saaray. inta ay asxaabta baashaalka ku jireen, Sofia waxaa telefishinka kaligeed ay ku arkaysaa
ayada oo meel kaligeed ah joogto sidoo kalena uu halkaasi kasoo muuqanayo ninkii layaabka lahaa ee koofiyada xirnaa ayaan kusoo aragnay bilowga filimka. Sofia oo argagaxsan ayaa waxay isku dayeysaa inay meesha kasoo cararto balse dhammaan shaashadihii ayaa waxaa kasoo muuqanaya ninkii. Sofia cabsi iyo dhib dheer kadib ugu dambeyn waxaa u suurtagelisay inay imaato guriga ayadeeda. Guriguna wuxuu ahaa mid isku dhex yaacsan oo aad u qasan. Waxay la fadhiistaa ayadeeda ayadoona dhibaatada haysta oo sheekeynayso. Ayeeyo waxay bilowdaa inay runta u sheegto Sofia. Waxay dhahdaa June ma ahan nin caadi ah sida aad u malaynayso. June waa nin argoosi u socdo wuxuuna kaa dhigtay wadadii uu mari lahaa. June oo magaciisu yahay Jill ayaa qarniyo ka hor wuxuu qabay mid ka mid ah haweenka qoyska. Qoyskani xilligaasi waxay ahaayeen kuwo magac iyo sumcad bulshada ku dhex leh balse xaaskiisa ayaa rag kale ku qiyaantay taasoo sababtay inuu June isagoo murugo iyo ciil dareemaya nafta isdhaafiyo. balse geeridaasi kadib ruuxda June ma aysan nabad helin waxayna ahayd mid argoosta ayadoona haweenka qoyskan jiilba jiil ku qasabtay inay nafta isdhaafiyaan. waxaana ogaanaa ayeeyada inay tahay haweeneydii aan bilowga filimka kusoo arkaynay ee ayadoo uur leh armaajada isku qarinaysay. ayeeyadu waxay u sheegtaa gabadheeda in ay wadada keliya ay ku badbaadi karaan qoyska ay tahay in asalkooda magacooda iyo dhaqankoodaba ay qariyaan si uusan June usoo raacin. haddana June wadada keliya uu qoyska kusoo helo waxay ahayd inay Sofia magaceeda saxda ah ku dhawaaqday. maalintii xigtay Sofia waxay soo aadaa shopping balse waxay maqashaa codad hoose oo magaceeda ugu yeerayo. isla xilligaasina waxay gashaa xaalad jahwareer iyo cabsi iskugu jirto. markay banaanka usoo baxdo waxay aragtaa nin ku labisan koofiyad cowboy ah wuxuuna u egyahay ninkii. ayadoo ninkii u malaynaysa ayaa waxay bilowdaa inay bud la korto. June xilligaasi markay guriga timaado waxay aragtaa ayadeeda oo xaalad caafimaad ku jirta isbitaalka ayayna usoo qaataa. dhakhtarkuna wuxuu u sheegaa inay koomo ku jirto balse xoogaa kadib si lama filaan ah waxaa soo muuqanaya June. Sofia waxay bilowdaa inay ka codsato inuu familkeeda iska nabadgeliyo habaarka ninka dulqaado balse June ayaa wuxuu u sheegaa inuu hal shardi wado shardigaasina haddii ay u fuliso uu faraha ka qaadi doono qoyskeeda. shardiguna wuxuu ahaa haddii ay nafteeda u hubayso oo ay aakhire la aado si ay wehel ugu noqoto inuu qoyska habaarka ku dulqaadi doono. Sofiana arrinkaasi waa ay ka fikiraysaa ugu dambeynna waa ay aqbalaysaa dalabkaasi si ay qoyskeeda u badbaadiso balse waxay u sheegtaa inuu siiyo muddo 48 saacadood ah. xaaladda ayeeyadu waxay u muuqataa mid aad looga deeriyo oo sii xumaanaysa marba marka ka dambeyso. June waxay wacdaa hooyadeeda si ay u wada kulmaan dhammaan familka balse taleefanka hooyadeeda lama qabanayo iyadana fariin codeed ayay u dhaaftaa. intaas kadib Sofia waxay soo aadaa diiwaanka qoyska maadaama aysan afka Kuuriyaanka aqoon ma caawinaysa macalimadeeda waxayna halkaasi ka dhex baaraan taariikhda June iyo magaciisa dhabta ah balse waa ay ka weynaysaa. waxayna halkaas ku arkaysaa dhacdooyin badan oo ku saabsan June balse magaciisa dhabta ah halkaas laga tirtiro oo la qariyay. markii ay si kasta u baato oo ay halkaas ka weyso ugu dambeyn waxay soo aadaa maktabadda jaamacadda ee taariikhda Kuuriya qarnigii 20aad. waxay bilaabaan maktabadda buugaagtii yaalla inay aqrin ku bilaabaan ayagoona ka raadinaya magaca dhabta ah ee June balse magac walba markii ay ku dhawaaqaan korontada ayaa tagtay. jawigana wuxuu ahaa mid cabsi ah waxaana qolka ku dhex wareegaya ruuxaanta June siday u dhawaaqayeen magacyo badan. ugu dambeyntii nasiib wanaag waxay ku dhawaaqayaan magaca saxda ah ee June kaasoo ahaa Jill. ku dhawaaqida magaca saxda ah ee June waxay sababtaa inay ruuxaantii meesha iskaga cararto. intaas kadib Sofia waxay soo aadaa isbitaalka balse waxaa halkaasi kusii sugayay June oo careysan wuxuuna u sheegaa in magaciisa ay soo ogaato keliya aysan ku burburi karin habaarka. wuxuuna u sheegayaa inay fuliso ballankiisii isagoona u dhiibayo midi si ay nafta isku dhaafiso oo ay ugu raacdo dhankii loo badnaa isagoona raba inay aakhiro wehel ugu noqoto. ka hor inta aysan Sofia wax sameyn oo ay nafta isdhaafin waxaa soo kacaysa ayeeyadeeda ayadoona nafteeda u horeysa si ay u badbaadiso tan gabadheeda iyo tan qoyskeedaba. ayeeyadana mididii ay isgelinaysaa balse ka hor inta aysan dhiman way u duceysaa dardaaran ayayna gabadheeda siidaa. dhimashada ayeeyada kadib ruuxaantii sidaas ayay meesha ooga tagtaa balse waxaad ogaataan habaarkii ma uusan joogsan oo keliya hadda waxay haystaan jaanis ay ku badbaadi karaan oo ay ooga qarin karaan June magacooda iyo aqoonsigoodaba. Sofia waxa ay weysay ayeeyadeeda balse hadda waxaa soo fuushay dhammaan mas'uuliyaddii ayeeyadeeda ay haysay taasoo ah inay ka hortagto in lagu dhawaaqo magacyada qoyska iyo wax ku saabsan qoyska iyo sidoo kale inay bedesho wax walba oo muujinaya inay qoyskaas jiraan iyo magacyadooda. halkaasina saaxiibayaal waxaa kusoo dhammaanaya filimkeennii xiisaha badnaa. idinkana waxaad iga sugitaan muuqaalo kuwan ka xiiso badan balse ha iloobin inaad muuqaalka like saartaan sidoo kalena channelkeena subscribe dhahtaan si aan u gaaro 10k subscribers. السلام عليكم.